isku soo noqod wanaag saaxiibayaal meel walbaa joogtaan magacayga waa qaliiji weli waxaan guda jirnaa casharadeen fuqshaynka ama leysin gaari wadista hore waxaan usoo qaadanaa casharka sideedaad qaybtiisa koowaad maanta waxaa hor usii wadanaa casharka sideedaad qaybtiisa labaad anagoo ka bilaabeynaa su-aasha afartanaad oo ayadan soo kaleeto ka kooban afar dhibcood qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay worauf sollten Sie sich in die Situation einstellen sawirkan oo kaleetood markaa aragtid ama xaaladan oo kale markaa ku sugan tahay uu ku leeyahay maxay tahay waxyaabaha inaad isku aadis ee tahay ama inaad ka taxadirta ee tahay qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay auf wildwechsel yacni wildwechsel wax kalma in xayawaanada qaar oo dhankan joogaan inay dhan kale u wareegaan oo kaleetood uu ku leeyahay iyo tan ku xigto ayadana ah auf Gegenverkehr der die Kurve schneidet meeshan kurvahan luuqan ah baabuur hortaada ka imaanayo dhankan kasoo baxo oo xariiqintiisa soo dhaafay inuu ka hor imaado iyo tan u dambeyso ayadana ah auf ein langsam fahrendes Fahrzeug auf meine Fahrstreifen dhankan aad ku socotid hortaada gaari ka horeeya oo si tartiib ah u socda in oo luuqan ku jira yacni adigoo xoog u socto oo gaarigaana oo laga yaabo in hadhow ku dhacdo kuleeyahay marka teebaa saxe dhammaantood baa wada sax maxaa yeelay meesha ujeedin waa meel durduuro ah xayawaanada u badan sagaarada oo kaleetoodo kale iyo xayawaano kale oo saaid inta badan carara waxaa laga yaabaa inay dhankan inta ka wareegaan dhan kale ay u wareegaan tan koowaad waa sax oo wax walbaa ka dhici kara tan ku xigta ayadan soo kaleetood waa sax waxaa baabuurta qaar oo kaleetood kale markii ay kuufa soo jarayaan dhankan usoo bataan oo xariiqinta way soo dhaafaan in gaari ka horeeya oo dhankan soo dhaafaya oo auf Gegenverkehr die Kurve schneidet ah iyo tan u dambeysa ayadan ah in gaari tartiib u socdo oo luuqan ku jiro marka adiga daa xoog u socotid mar haddaa luuq gashid oo gaari tartiib ku socdo waxaa laga yaabaa in markaa meeshaas oo shil ka abuuro marka saddexdoodaba waa wada sax su-aasha afartan iyo koowaad wuxuu ku leeyahay si aad ugu jawaabtid marka hore waa inaad videoga daawataa marka wuxuu ku leeyahay haddii aad videoga daawatay warum sollten Sie hier weiter verzögern haddii aad maxaa sababta aad gaarigaaga usii celinaysid maxay tahay uu ku leeyahay markaan oo kaleetood qaybta kood wuxuu ku leeyahay weil weitere Person die Fahrbahn betreten konnte waxaa laga yaabaa uu ku leeyahay dadka qaar in ay wadada marayaan uu ku leeyahay ama ay wadada taagan yihiin oo baabuurta marta tan ku xigta wuxuu ku leeyahay weil meine Fahrzeug sonst von der Fahrbahn abkommen konnte waxaa laga yaabaa uu ku leeyahay in gaarigayga meeshan ku socdo in oo ka leexdo ama ka weecda laga yaabaa uu ku leeyahay wadada iyo tan u dambeyso ayadana ah weil das rote Fahrzeug auf meine Fahrstreifen ausweichen konnte iyo wuxuu ku leeyahay gaariga gaduudka ah in oo haddii dadka videoga daawaday waxaa jira gaari gaduud ah oo gaarigan ka dambeeyay waxaa laga yaabaa uu ku leeyahay gaarigaas gaduudka ah in dhankayga aniga aan ku socdo in oo usoo leexdaa laga yaabi karaa uu ku leeyahay marka ayadana teebaa saxe marka waxaa sax ah weil weitere Person auf die Fahrbahn betreten konnte gaarigan meesha yaalo kale dadka kasoo dega oo kaleetood oo kale in meelahan oo kale daa fiirsadada taagan wuxuu ku leeyahay dad taagnaa karaan oo kale laga yaabaa uu ku leeyahay iyo sidoo kaleetood weil das rote Fahrzeug auf meine Fahrstreifen ausweichen konnte baabuurka doo meesha taagan yahay mar gaari ka dambeeya meesha ma taagnaanay wuxuu isku dayayaa in oo kasoo gudbo oo dhankan usoo gudbo isku daya marka wuxuu ku leeyahay gaariga oo gaduudkaana waxaa laga yaabaa inuu dhinaca u socdo in gaarigaaga oo leexdo oo dhinac u leexdo ama dhinac u wicdo wax shaqo ku leedahay mala marka ayadan labadan bis ayaa saxa su-aasha afartan iyo labaad oo ka kooban saddex dhibcood wuxuu ku leeyahay Sie erhöhen Ihre Geschwindigkeit von 50 km/h auf 100 km/h wuxuu ku leeyahay waxa speedkaaga ama xawaarahada oo kontonka ahaa ka dhigtay uu ku leeyahay 100 wie verändert sich der Bremsweg entsprechend der Faustformel dadkii hore videoga hore u daawaday 8.1 u daawaday waxaa ku sharaxnay formulada qaabka u shaqeyso iyo markii aad isku xisaabinaysid breega sida u shaqeynaysa hore usoo sharaxnay marka wuxuu ku leeyahay adigoo konton ku socda oo boqol ka bedeshay ku leeyahay breegaaga isku bedela ku leeyahay markii loo eego formuladan qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay verdoppelt sich von 15 Meter auf 30 Meter wuxuu laba jibaarmaya uu ku leeyahay 5 markuu maraa wuu laba jibaarmaya oo wuxuu noqonayaa 30 halbiert sich von 50 auf 25 Meter wuxuu ku leeyahay konton markuu ah half buu iska dhigaya uu ku leeyahay oo wuxuu noqonayaa 25 Meter iyo ta u dambeyso ah vervierfacht sich von 25 Meter auf 100 Meter wuxuu ku leeyahay wuxuu uu afar mar jibaaraya uu ku leeyahay oo asigoo 25 ah
buu wuxuu noqonayaa uu ku leeyahay 100 mitir ayadana teeba sax marka hore formulada maxaa ugu soo sheegnay markii bremsweg la xisaabinayo waxay ahayd geschwindigkeit loo qaybiyay 10 lagu dhuftay geschwindigkeit loo qaybiyay marka la tahay 10 geschwindigkeit meesha ku haysan maxay tahay hadirtaan hore 50 baa laakiin hadda 100 ka dhigtay 100 loo qaybshay 10 lagu dhuftay 100 loo qaybshay 10 marka hal eber isku baxaya marka 10 lagu dhufto 10 ku soo baxayso waxay noqonaysaa marka vervielfacht sich von 25 Meter auf 100 Meter inuu afar mar jibaarmaya uu kuleeyahay markuu 25 mitir noqdo afar mar ayuu isku laba jibaarmaya oo wuxuu noqonayaa 100 mitir ayuu noqonayaa uu kuleeyahay marka midda saxda ah waa waxa waay in 25 mitir markuu yahay oo 100 mitir oo isku gudbinayo waa kuleeyahay su-aasha 43 wuxuu ku leeyahay sie fahren in einer Rechtskurve waxa ku socota uu ku leeyahay ama gaariga ku wada laami oo dhanka midigta u qaloocanaya ku wada uu ku leeyahay gaariga ein Motorfahrer kommt in mit höherer Geschwindigkeit entgegen buu ku leeyahay waxa ku imaanaya uu ku leeyahay waxa ka hor imaaday mooto wata ayaa ka hor imaaday oo xawaare said ah ku socdo ka hor imaaday uu ku leeyahay mit welchen Gefahren müssen sie rechnen halis nooce ah ayaa marka ku fikiraysa marka as dhigi kartaa marka halistaas dhici karto qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay der Motorfahrer recht wegen starker Schräglage in meine Fahrstreifen hinein wuxuu ku leeyahay mootooyinka qaar waa aragtay markii ay wadaan si toos luuq ka leexanayaan madaxooda dhinacay u soo leexiyaan mootadan lugooda gees kale ay geeyaan oo mootada way qalowciyaan ayagoo qalowcay laamiga ugu soo baxaan marka wuxuu ku leeyahay dhankayga midigta maadaama dhinac midig u leexanayso bahalka mootada wuu soo seexinaya qaab oo asigoo seexan oo madaxiisa dhankayga soo jiro ayuu mootada soo wadaya ku leeyahay tan ku xigtan wuxuu ku leeyahay schneidet die Kurve tan ku xigtan wuxuu ku leeyahay schneidet die Kurve und befährt meine Fahrstreifen in wuxuu soo jaraya uu ku leeyahay laamiga qaloociisa soo jaraya uu ku leeyahay ayuu wuxuu ku wadaya markaas dhankiisa inta kasoo tago oo dhankayga ku wadaya uu ku leeyahay aydan tan u dambeyso wird rechtzeitig bremsen und meine Fahrstreifen nicht befahren wuxuu ku leeyahay haddii marka oo arkaba break ayuu qabanaya uu ku leeyahay dhankaygana kuma soconayo uu ku leeyahay marka ayadana teeba sax waxa sax ah in ninka mootada wado oo mar walba mootada madaxiisa oo dhankaaga la imaanayo oo recht wegen starker Schräglagen in meine Fahrstreifen hinein iyo tan ku xigta oo ayadan schneidet die Kurve und befährt meine Fahrstreifen in oo meesha oo soo jiro oo dhankiisa kasoo gudbo oo dhanka adiga gaariga ku wadid oo asigana mootada ku kaxay in oo break hore ka qabto oo maxaa ku dhahaa ii sheeg oo dhankaagan aan ku soconin iska ilowtaas mar walbo waa dhici kartaa maxaa yeele nin mooto isla markii wado way ku adagtaa break inuu isla marka hore ka qabto maxaa yeele asiga xataa naftiisa halis ayay u keenaysaa marka labadan bis ayaa saxe su-aasha 44 sidoo kale waa 4 dhibcood wuxuu ku leeyahay in einer schmalen Straße wollen sie in einer Steigung Radfahrer überholen wie verhalten sie sich wuxuu ku leeyahay wado dhuuban ayaa oo buur ahaan u koraysid ayaa waxa rabtaa uu ku leeyahay baskiil in aad überholen ku samaysid ama aad dhaafto ku leeyahay wie verhalten sie sich sidee u dhaqmaysaa uu ku leeyahay ma macaamilaysaa qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay ich muss vorsichtig dicht an den Radfahrer vorbeifahren wuxuu ku leeyahay si taxadir ah oo cariiri ah in baskiilka aan ku dhaafaya uu ku leeyahay tan ku xigta wuxuu ku leeyahay großen Seitenabstand einhalten waxaan siinaya uu ku leeyahay space weyn ayaan siinaya uu ku leeyahay iyo sidoo kale ta u dambeysa oo ich muss den Gegenverkehr vor den Überholen vorbeifahren lassen iyo waxaa qasbigu uu ku leeyahay baabuurta aniga iga hor imaanaysa in aan gudbiyo marka hore si markaas ka bacdi aan baasaya uu ku leeyahay marka hore waxaan gudbinaya baabuurta oo iga hor imaanaysa kadib ayaa baasaya uu ku leeyahay marka teeba sax ayadana waxaa sax ah in aad maxaa ku dhahaa großen Seitenabstand celisid oo space weyn aad siisid qofka marka baaskiilka ku gudbisid caadi ahaan 1 mitir bar camal in aad siisid qofka marka baaskiilka ku goynaysid iyo tan ayadan ku xigta oo Gegenverkehr vor den Überholen vorbeifahren haddii aad baaskiilba aad daba socotid oo baabuurka hor imaado oo jiro in wax baabuurta ka hor imaanaya aad gudbisid marka ayaga gudbaan ka bacdo asdaada markaan ka bacdi gaarim socdo in aad adigana aad überholen ku samaysid baaskiilka adigoo space weyn siinay in aad baaskiilka cariiri hoosta ku gudubtid waa qalad wax jira maaha su-aasha 45 wuxuu ku leeyahay sie erhöhen ihre Geschwindigkeit von 50 km/h auf 100 km/h wuxuu ku leeyahay speedkaaga oo 50 ahaa waxaa ka dhigtay uu ku leeyahay 100 wie verändert sich der Reaktionsweg entsprechend der Faustformel
wuxuu ku leeyahay sidoo isku bedelaya uu ku leeyahay reaction break ah waxa waaye ii sheeg asigana waa qeyb break ka mid ah oo ayadana aan soo sheegnay formula ay ku shaqeyso sidoo isku bedelaya uu ku leeyahay marka asigana markii aad konton adigu ku socotid aad boqol ku dhigtid marka qaybta wuxuu ku leeyahay verdoppelt sich von 15 Meter auf 30 Meter wuxuu islaba jibaarayaa 15 asigoo ah buu islaba jibaarayaa 30 noqonaya uu ku leeyahay vervierfacht sich von 25 Meter auf 100 Meter wuxuu afar mar jibaarmaya uu ku leeyahay oo 25 asigoo ah buu wuxuu noqonayaa 100 Meter iyo kan u dambeeyo ayadan ah halbiert sich von 50 Meter auf 25 Meter konton Meter asigoo ah buu half buu iska dhigaya uu ku leeyahay wuxuu noqonayaa 25 Meter marka ayadan intee baa sax marka jawaabtu waxay tahay reaction vega oo aan laga sharxayo iyo bremsvega laba qayb oo kaliya reactionka formula gooni oo ahaa oo wuxuu lahaa geschwindigkeitska ku socotid oo loo qaybiyay 10 lagu dhuftay 3 laakiin bremsvega oo ka duwana wuxuu bremsvega geschwindigkeitska oo loo qaybiyay 10 lagu dhuftay geschwindigkeitska marka la oo loo qaybiyay 10 laakiin tan hadda waxay tahay reaction vega waxay tahay mar walba geschwindigkeitska ku socotid oo ah 100 oo loo qaybiyay 10 oo lagu dhuftay saddex meesha ka imaaday ma garana laakiin oo lagu dhuftay sidaas ay formula caadiga ah tahay marka haddii konton kan aad 10 u qaybisid oo aad ku dhuftid 3 waxay noqonaysaa 15 iyo sidoo kale 100 kan haddii aad u qaybisid 10 oo aad ku dhuftid 3 ayadan waxay noqonaysaa 30 marka verdoppelt sich von 15 Meter auf 30 Meter konton kan oo 15 isku bedeshay buu wuxuu isku sii bedelaya oo kaliya 30 Meter 100 kan 30 isku sii bedelaysa marka tan bis ayaa sax ah su-aasha 46 wuxuu ku leeyahay womit müssen Sie rechnen sawirka marka aragtid maxay waxyaabaha inaad ku fikiraysid maxay tahay ayuu ku leeyahay ujeediin meeshan waxaa shildiga ku jiro oo qaloocaas shildiga ku sawiran wuxuu ku sheegayaa in meeshan kuufi imaanayo ku sheegaya qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay mit einer gefährlichen links kuufi waxaa imaanaysa ku leeyahay laami qaloocasho dhanka bidixda ah oo halis ah imaanaysa ku leeyahay tan ku xigta wuxuu ku leeyahay mid kuefeke for the kube wuxuu ku leeyahay kuefeke wax kale maahan waa croiska laamiga meesha iska jiray baabuurta dhankooda imaanayaan in ay jirto kuubaha markaan gudbo ka bacdi buundada hoos meesha hoos markaan ka bacdi in laamiga meesha iska goynayo kaleetood aan imaado ku leeyahay iyo mid einem hindernisse hinter the kufe in aan mushkiladii qaar ugu qabsato ku leeyahay kuubaha markii ay ka bax ka bacdi in xogaa waxyaabaha halis qaar ay dhacaan ku leeyahay marka ayadana teeba sax ah marka waxaa sax ah mit einer gefährlichen links kufe in ay imaado laamiga dhanka bidixda marka uu qoloc in halis ay imaado iyo sidoo kaleetood mit einem hindernisse hinter the kufe in ay caqabada qaar imaadaan markii aad kuubaha ka baxdi ka bacdi inay caqabada imaadaan marka labadooda bis ayaa ayadana sax ah Asha 47 wuxuu ku leeyahay Sie fahren bei Nebel auf der Autobahn und haben 50 Meter Sicht. Wie schnell dürfen Sie höchstens fahren? Nebel wax kale maahan waxa la dhahaa dadada ama ceryaamo ama markii oo qabowga saaidka oo jiro oo meel dheer aadan waxba ka arki karin magaalada dhan isku bedelayso wax cad camal isku bedelaan oo meel dheer waxda aan ka arkin ayaa la dhahaa Nebel in ceryaamo ay tahay umalinaya marka wuxuu ku leeyahay adigoo socdo ayaa autobank waxa ku heshay ku leeyahay ceryaamadan ama wixii waxa arki qabowga dartiisa wax ku arki weysay on haben 50 Meter Sicht konton Meter bis ayaa wax arki kartaa wixii ka dheer ma arki kartid uu ku leeyahay marka wie schnell dürfen Sie höchstens fahren ilaa iyo meeqa ayaa gaariga wadi kartaa uu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay 50 Meter wuxuu ku leeyahay 50 km/h waxaan ku soconayaa xawaare oo konton ah waxaan ku soconayaa xawaare 70 ah iyo waxaan ku soconayaa xawaare 90 ah marka ayadana teeba sax ah marka hadiiba aad haystid waxa arkaysid konton Meter oo yahay konton Meter baad arkaysid waxa ku soconaysaa xawaare konton km/h ah ayaa ku soconaysaa si aragaaga iyo waxa aad ku socsid ay isku lahadaan su-aasha 48 saddex dhibcood waaye wuxuu ku leeyahay sifaan 100 km/h waxaa ku soctaa uu ku leeyahay 100 xawaare 100 km ah haben eine Sekunde Reaktionszeit hal second reaction ah ayaa haystaa uu ku leeyahay und führen eine normale Bremsung durch waxaana sameynaysaa uu ku leeyahay break caadi ah ayaa qabanaysaa uu ku leeyahay wie lang ist der Anhaltweg nach der Faustformel wuxuu ku leeyahay celitaanka aad celinaysid meeqo qaadanaya uu ku leeyahay markii aad 100 km ku socotid oo hal second gudihiisana aad reaction ah haystid in aad break ku qabatid ilaa iyo gaariga breakiisa ah meeqo soconaya uu ku leeyahay markii loo eego formulaha
first formula la dhahay oo hore aan usoo sharxnay cashirka hore. Marka reaction site-ka inta badan waxaa lagu xisaabiyaa xisaabta kasoo baxda Bremsweg-ga iyo reaction site-ka markii labadooda wax kasoo baxaan oo la isku daro ayaa waxaa kusoo baxaysa reaction site kusoo baxaysa. Bremsweg waxaan ku sheegnay Geschwindigkeit-ka oo loo qaybiyey 10 lagu dhuftay Geschwindigkeit-ka oo loo qaybiyey 10 iyo tan kaleetood reaction site-ka oo aydan reaction Weg oo aydan ahayd Geschwindigkeit-ka loo qaybiyey 10 lagu dhuftay 30. marka tan haddii hadda aan Bremsweg caadiga ah xisaabino oo dhan 100 loo qaybiyey 10 lagu dhuftay 100 loo qaybiyey 10 waxaa noo soo baxayso 100 oo lagu daray buu ku leeyahay markii tan oo caadi ah reaction Weg caadiga loo xisaabiyo ah 100 kan oo loo qaybiyey 10 lagu dhufto 30 3 oo aydan soo baxayso 30. marka 100 iyo 30 marka isku daro waxay noqonaysaa 100 iyo 30 mitir ayuu noqonayaa oo ku leeyahay xawaaraha oo inta qaadanayso celinta break-ga. su-aasha 49 sidoo kale laba dhibcood wuxuu ku leeyahay sifaan 100 km/h waxa uu ku socdaa uu ku leeyahay 100 km und führen eine normale Bremsweg durch waxaana celinaysaa uu ku leeyahay break caadi ah iska qabanaysaa uu ku leeyahay wie lang der Bremsweg nach der Faustformel. break-ga caadiga marka meeq ayuu soconaa uu ku leeyahay marka loo eego nidaamka oo ah formulahan oo ah Faustformel marka loo eego meeq qaadanaa uu ku leeyahay. tii hore hadda aan soo dhaafnay waxaa ku jira reaction site-ka ku jira oo reaction ficilska sameynaysa ku jira laakiin kan reaction kuma jiro waxa waa bis waxa lagu weydiiyay formulaha Bremsweg caadiga ah Bremsweg caadiga ah lagu weydiiyay. Bremsweg caadiga muxuu ahaa 100 loo qaybiyay 10 lagu dhuftay 100 loo qaybiyay 10 maxay noo soo baxaysaa 100 caadiga noo soo baxaysa marka formula caadiga ah waa laakiin reaction site-ka marka soo galo waxaa labada formula inta marto ama waxay labada formula si ku kalsoonaan ba isku daraysaa kadibna waxa ku soo baxaysa xisaabta caadiga ah. su-aasha kontonaad waa laba dhibcood wuxuu ku leeyahay sifaan 100 km/h und haben 1 Sekunde reaction site waxaa haystaa uu ku leeyahay 100 kilometer oo ku soctaa uu ku leeyahay oo 1 second reaction haystaa uu ku leeyahay wie lang ist der reaction Weg nach der Faustformel. reaction-kaaga marka Weg caadiga meeq qanaa uu ku leeyahay marka loo eego Faustformulahan. ayadan sidoo kale wax kale ma ahan kaliya waxa lagu weydiiyay reaction Weg caadiga waa formula caadiga ee qabta iyada oo ah 100 loo qaybiyo 10 lagu dhufto 3 100 loo qaybiyo 10 lagu dhufto 3 maxaa ku soo baxayso 30 ayaa ku soo baxayso. su-aasha 51 wuxuu ku leeyahay sifaan 50 km/h waxa qofta uu ku leeyahay 50 km/h haben 1 Sekunde reaction site waxa haystaa uu ku leeyahay 1 second oo reaction ah inaad break ku qabatid und führen eine normale Bremsung durch break caadi ah qabanaysa ku leeyahay wie lang ist der Anhaltweg nach der Faustformel. celinta break ay celinayso Faustformel loo xisaabiyana meeqa qaadanaysa. sidoo kale wax weyn ma ahan kaliya tan labada formula ayaa isku marinaysa labada jawaab ee ku kala soo baxay isku daraysa kadib ayaa wax ku soo baxaysa jawaabta oo ah haddii Bremsweg ku bilaabno oo ah 50 loo qaybiyo 10 lagu dhufto 50 loo qaybiyo 10 waxaa noo soo baxayso 25 iyo reaction Weg oo aydan ah 50 loo qaybiyo 10 lagu dhuftay 3 oo aydan 15 lagu daray 25 waxaa ku soo baxayso 40. waa formula labada formula isku xisaabinaysa kadibna waa isku daraysa jawaabta ku soo baxda halkan ku qoraysa. su-aasha 52 wuxuu ku leeyahay sifaan 50 km/h und führen eine normale Bremsung durch 50 boxata break caadi ayaa qabanaysa wie lang ist der Bremsweg nach der Faustformel. break marka meeq ayuu qaadanaysaa uu ku leeyahay break caadiga ah markii loo eego formulahan. su-aasha 53 isagoo wada dhibcood wuxuu ku leeyahay sifaan 50 km/h waxa ku socdaa 50 km/h und haben 1 Sekunde reaction site waxaana haystaa uu ku leeyahay 1 second oo reaction break ah wie lang ist der reaction Weg nach der Faustformel. reaction Weg caadiga ah qormo adiga xataa isku day inaad ka sii xisaab maskaxaan u fahanto in inta xifdi lahayd waxa fiican inaad fahanto qaabka xisaabta u shaqeynayso si ay kugu fudaato jawaabta hadhow aadan u fikirin yani waxa markaa meesha ka imaan karto. marka wie lang ist der reaction Weg nach der Faustformel. reaction kadhow marka hadhow meeq kugu qaadanaysaa markii aad 50 haysto. reaction Weg waa sheegnay waxay aad 50 ka loo qaybiyay 10 lagu dhuftay 3 ayadan ah 15. كونتني أفراد wuxuu ku leeyahay sifaan auf einer su-aasha 54 wuxuu ku leeyahay sifaan auf einer sehr schmalen Straße waxa ku socdaa ku leeyahay wada dhuuban ku socdaa ku leeyahay und haben 50 Meter Sichtweite waxaana wax arki kartaa ku leeyahay 50 mitir. wie lang darf ihre Anhaltweg höchstens sein. celinta celinaysid marka ugu badnaan meeq ahaan kara ku leeyahay markii aad 50 mitir bis wax arkis. marka haddii aad
marka haddii aad 50 mitir wax arkaysid oo waddo dhuuban aad ku socotid waxa wax celinaysid waxay tahay intan oo loo qaybiyey labo oo isku noqonayso 25 baad celin kartaa gaariga 25 mitir ayaa celin kartaa su-aasha 55aad wuxuu ku leeyahay wie lautet die Faustformulaha dem Bremsweg einer Fahrbahnbremsung auf ebene, trockene und asphaltierter Fahrbahn ausrichten. magaca waa komish aba laakiin yan wax weyn ninka naqan waxa la bis meesha hadii oo inta badan duurduuraha geedaha ka baxaan meel qaar waxa jirta baaskiilada bis loogu talagalay oo laakiin laami ah laamigaas oo kale todo kale ayaa la asphaltierter Fahrbahn oo ay dad Allah magaciisa Allah marka wuxuu ku leeyahay formula marka laamigaas oo kale maraysid oo qaleel ah marka maraysid oo ku leeyahay Gefahrbremsung marka qabanaysid oo ku leeyahay marka formulahan aad xisaabinaysid sida loo xisaabiyo oo ku leeyahay marka Bremsweg aad rabtid aad samaysid oo gefaar ah halista ah inaad samaysid meeqa formulaheeda tee way oo ku leeyahay marka qaybta koowaad oo geschwindigkeidka aad ku socotid loo qaybiyo 10 lagu dhufto 5 haddana loo sii qaybiyo 2 iyo tan ku xigto oo ayadana ah geschwindigkeidka ku socotid loo qaybiyo 10 lagu dhufto geschwindigkeidka ku socotid loo qaybiyo 10 oo loo qaybiyay 2 kaletood iyo tan u dambaysa ayadana ah geschwindigkeidka loo qaybiyo 10 lagu dhufto 3 loo sii qaybiyay 2 marka tee formulahe ayaa lagu xisaabiyaa oo kuleeyahay marka si aad u xisaabisid break aad ku qabanaysid oo si halis la u qabanaysid markii aad meel qalan aad joogtid oo wadada hadaa idin sharaxay ah aad joogtid waxay noqonaysaa tan oo ah geschwindigkeidka loo qaybiyo 10 lagu dhuftay geschwindigkeidka loo qaybiyo 10 oo markii wax ku soo wada baxo loo sii qaybiyay 2 sababta ku yimaado maqan laakiin sharciga ayaga ay ku haystaan ayaa sharcigan ah su-aasha 56aad wuxuu ku leeyahay sifaan 40 km/h waxaa ku socotaa 50 kilomitir ku socotaa uu ku leeyahay bei einer Gefahrbremsung beträgt der Bremsweg ca. 8 Meter breegaaga caadiga ayaa wuxuu qaatay uu ku leeyahay 8 Meter wie lang ist der Bremsweg unter sonst gleichen Bedingungen bei 50 km/h xaaladan oo isla xaaladii oo kale markay tahay meeqa ayuu kugu qaadanaysaa uu ku leeyahay 50 mitir haddii 40 mitir zid kugu qaatay 50 mitirka meeqa kugu qaadanaysaa uu ku leeyahay marka formula haday caadi u aragno waxay ahayd geschwindigkeidka loo qaybiyay 10 lagu dhuftay geschwindigkeidka loo qaybiyay 10 waxa dhan markuu soo bax ka bacdi loo sii qaybiyay 2 ay ahayd hadda salaan ka soo qabo hadda 40 kan waxay noqotay oo ku leeyahay 8 mitir oo noqotay ku leeyahay sidee ku noqotay 40 loo qaybshay 10 lagu dhuftay 40 loo qaybshay 10 4 loo qaybay 10 waa 4 iyo 40 loo qaybshay 10 4 4 ku dar 16 loo sii qaybshay 8 mitir saas ku imaada marka kontak marka taa marka soo ku imaanaysa konton waxa u qaybisaa 10 lagu dhuftay 50 u qaybi 10 5 isku dhufo 5 labu qaybi waxa ku soo baxayso 12.5 mitir marka formulooyinkaas ay ku anfacayna iska heystid oo mar ay ku badbaadinayaan su-aasha 57aad wuxuu ku leeyahay sifaan bei guter Sicht auf einer gut ausgebauten Straße wax muuqaal fiican aragti fiican oo wado aad loo dhisay ku socotaa ku leeyahay ina halb welche Strecke müssen sie anhalten können ilaa iyo Strecke nooce ayaa celin karaysaa uu ku leeyahay gaariga ina halb doppelten von mir übersehen Strecke wuxuu ku leeyahay inta anigaan u jeedo oo laba jibaaran ayaan celin karaa ku leeyahay halb von mir übersehen Strecke half inta u jeedo halfkeeda ayaan celin karaa uu ku leeyahay iyo ta u dambaysa aydan ah von mir übersehbaren Strecke inta anigaan aan arkayo aan Strecke aniga arkayo baan kartaa uu ku leeyahay marka teeba sax ah marka ayadana wax sax ah von mir übersehbaren Strecke inta adiga u jeedid ayaa celin karaysaa su-aasha 58 wuxuu ku leeyahay sie haben auf eine Landstraße abgelandet waxa ay maaday uu ku leeyahay socotay meel Landstraße wax kala maahan baabuurta markii aad ku wadid meesha oo duurduurka oo kale tood laamida caadiga oo beerleyda meesha beerleyda camal ay leeyihiin aad ku dhex socodsiin lahaa oo loogu talagalay boqolkiiba lagu wado ina halbal Strecke müssen sie anhalten können Strecke ilaa inta ay tahay ina celisid buu ku leeyahay ina halb der Reichweite des Standlicht inta oo ayahay ku filan yahay uu ku leeyahay Standlicht kanalkaaga caadiga ah intuu yahay Fenlicht waxa la asigana maxaa la nalka dheereey weynka ah iyo Abblendlicht oo aydan sidoo kale ah nalka caadiga ah marka ayadana ilaa intay celinaysaa uu ku leeyahay sidoo kale waxay noqonaysaa
upland lishkaaga intuu yahay ayaa ayadana sidoo kale celinaysa. upland lishka wax kale maaha, waa nalka caadiga ah lagu socdo. su-aasha 59 waxay ka kooban tahay 5 dhibcood. wuxuu ku leeyahay wovon hängt der anzuhaltende Abstand zum vorausfahrende Fahrzeug ab. in aad baabuur ka horeeya space siisid ama aad space siisid maxay ku xiran tahay buu ku leeyahay. wuxuu ku leeyahay von der Geschwindigkeit, xawaaraha adiga ku socotay ku xiran tahay. wuxuu ku leeyahay von der Sichtverhältnis, aragga idin dhexeeyo labadiina ayuu ku xiran tahay ku leeyahay. und von der Fahrbahn Beschaffenheit, iyo sida laamiga uu yahay xataa ayadana way ku xiran tahay ku leeyahay. marka teeba sax ah. marka dhammaantood baa wada sax. si aad gaariga ka horeeya aad space fiican u siisid waxay ku xiran tahay xawaaraha ku socotid. waxay sidoo kale ku xiran tahay aragga u arkis gaariga ka horeeya, iyo sidoo kale waxay ku xiran tahay sida wadada loo dhisay ay ku xiran tahay. dhammaantood baa wada sax. su-aasha 60aad wuxuu ku leeyahay si ugu jawaabtid waa inaad video daawataa. marka wuxuu ku leeyahay haddaad video daawatay FIFA halkan siis richtig sida saxda ah oo macaamilisay waa ku leeyahay ich bremse ab, break ayaa qabanaya ku leeyahay. ich behalte meine Geschwindigkeit bei, xawaaraha hadda aan ku socdo aan ku sii wadaya ku leeyahay. ich vergrößere den Abstand zum Einschärende, waxaa ninka hadda soo galay spacekiisa ayaan weyneynaya ku leeyahay, waa sii weyneynaya. marka teeba sax ah. waxaa idan sidoo kale sax ah in aad gaarigaaga break ku qabanaysid, break qabanaysid, iyo sidoo kale tood in aad space kale tood oo weyn aad siinaysid. in aad sida aad ku socotid ninkan waa ku dhacaysa wuuna ka horeeya. marba haddaa gaari gadaal ka dhacdid dembiga adiga askale, ama haddoo soo galo amaadna ku jiro, haddaa marba gaari gadaal ka daabatid adiga ayaa dembiga iskale. marka inaad break qabatid iyo sidoo kale tood in aad spaceka idin dhexeyn aa weynaysiisid. labadan bis ayaa idan saxa. su-aasha 61 wuxuu ku leeyahay was erleichtert das Fahren im Kolonnenverkehr. markii aad Köln waxaa la wax kala maan markii tusaale ahaan baabuur badan oo tusaale ahaan boolis ah ay isdaba taagan yihiin oo kaleetood oo kale, ama baabuur badan ay isku daba xiran yihiin oo kaleetood maxaa fududeynaya uu ku leeyahay. fahren mit ständig eingeschalteten Warnblinklicht, in aad ku socotid adigoo Warnblinklicht wax kala maan baabuurta nalalka farajooyinka nala oo blik gaadno afarta qeybood ka darmaya. wuxuu ku leeyahay leicht versetzen fahren im eigenen Fahrstreifen, in aad ku jirtid si tartiib ugu jirtid uu ku leeyahay qeybta adiga gaariga kaga wadid. iyo sidoo kale das Beobachten der Kolonnen durch die Scheiben der Vorausfahrenden, in aad sidoo kale tadna ka taxadirtid sida ay u kala macaamilayaan baabuurta ka horeysa, siday u socdaan ayagana in ayadan sidoo kale ka taxadirto uu ku leeyahay. marka teeba sax ah. marka waxaa sax leicht versetzt fahren im eigenen Fahrstreifen, in aad tartiib booskaaga ku jirtid, iyo das Beobachten der Kolonnen durch die Scheiben der Vorausfahrenden, in baabuurta ka dambeysa iyo kolonka aad ka taxadirtid uu ku leeyahay qaabka u socdaan. in aad Warnblinklicht aad dartid waa qalad. su-aasha 62 wuxuu ku leeyahay beim Verlassen einer Ortschaft erhöht ein ca 15 Meter vorausfahrendes Fahrzeug. waxaa iskordhiy buu ku leeyahay adoo meel ka tegaysid ka bixaysid meel joogto adoo ka tegaysid baa waxaa iskordhisay buu ku leeyahay 15 mitir ayuu iskordhiy uu ku leeyahay gaariga ka horeeya. und sie die Geschwindigkeit von 50 km/h auf 100 km/h, 50 mitirka caadiga ahna wuxuu u bedelay 100 mitir ku socdo uu ku leeyahay. wie sollten sie ihre Sicherheitsabstand gegenüber dem Vorausfahrenden ändern, xaaladaada sida u bedelaysaa uu ku leeyahay oo gaariga gawaaridan ka dambe. wuxuu ku leeyahay ich sollte die Sicherheitsabstand auf mindestens 25 Meter erhöhen, waxaan kordhinaya uu ku leeyahay 25 baan kordhinaya uu ku leeyahay. unverändert bei behalten, anun waxba iska bedelayaan si hayna uu ku leeyahay auf mindestens 50 Meter erhöhen, waxa aan kordhinaya uu ku leeyahay 50 mitir ayaan kordhinaya uu ku leeyahay si baabuurta ka dambeysa ay boos fiican ay siiyaan uu ku leeyahay. marka ayadana teeba sax ah. marka waxaa sax ah in aad 50 mitir aad kordhisid ayaa ayadana sax ah. su-aasha 63 waxay koobta 4 dhibcood. wuxuu ku leeyahay si aad u jawaabtid waa inaad video daawataa.
wuxuu ku leeyahay die Geschwindigkeitsregelanlage meesha geschwin xawaara lagu xawaarahan caadiga inta laga tuso ku leeyahay ihre Kraftfahrzeug ee baabuurkaaga is auf 130 km/h calaamadan caadiga ah wuxuu ku marayaa buu ku leeyahay 130 km/h adigu ku socotid ayuu ku saaray ku leeyahay wie verhalten sie sich jetzt richtig hadda sidee u macaamilaysaa buu ku leeyahay ujeedii mooto ayaa meesha soo gashay 130 ayaa meesha ku saaray sidee u macaamilaysaa ku leeyahay wuxuu ku leeyahay ich muss auf den rechten Fahrstreifen wechseln waxa uu bedelnaa uu ku leeyahay dhankan midig ayaa u bedelnaa Fahrstreifen waxa la calaamada ilaa calaamada inta u dhaxaysa la qaybtan oo midigta u bedelnaa buu ku leeyahay denn ich muss den Sicherheitsabstand durch Bremsen wiederherstellen break anoo qabanayo ayaan waxa ayaa space-kayga dib usoo bilaabay uu ku leeyahay inta u dambeysa uu ku leeyahay das motor überholen in aad überholen ku sameeyo motorka mootadan meesha taala überholen ku sameeyo marka aydan intee baa sax marka kaliya waxaa sax meeshan ich muss den Sicherheitsabstand durch Bremsen wiederherstellen in aad break aad qabatid darteeda bis ayaad ku badbaadi kartaa maxaa yeelay haddii aad dhankan u bedelatid waa ujeedii meeshan gaari ayaa gadaashaas soo socda sidoo kale haddii aad midigta u bedelatidna gaari ayaa soo socda haddaad leedahay mootadan baa überholen ku sameynayana boos kugu filan ma haysid oo überholen ugu samaysid marka xalka kaliya aad ku soo celin kartid aad u macaamili kartid waxay tahay inaad break adiga aad qabatid si aad space fiican aad u samaysid meeshan su-aasha 64 wuxuu ku leeyahay sifaan auf ein Landstraße waxaa ku soctaa uu ku leeyahay Landstraße Landstraße waxaa la marka magaala laga baxo laamida banaankiisa ka marayo und vor ihnen hat sich ein langsam fahrende Fahrzeugschlange von ca. 15 Fahrzeugen gebildet wuxuu ku leeyahay inta waxaa ka horeeya baabuur badan tartiib u socota oo 15 baabuur camal ah ayaa isdhiseen uu ku leeyahay wie verhalten sie sich so macaamilaysaa oo tartiib u socda ich fordere vorausschauende durch Lichthübe und Blink zum zu überholen nalka ayaa u daaraya uu ku leeyahay iyo sidoo kale tood blinkaha daaraya uu ku leeyahay si aan überholen ugu sameeyo ich überhole die Fahrzeugschlange schnellst möglich sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa ku moodaya uu ku leeyahay baabuur 15 xabo ee ka horeeya iyo ich bleibe zunächst hinter der Fahrzeugschlange baabuurtan safka samaysay gadaashood ayaan taagnaanaa uu ku leeyahay marka teebaa saxe marka xal kaliya ku furan waxay tahay in aad sugtid inta inaad gadaashooda taagnaatid oo aad sugtid ilaa ay 15 kan baabuur ay ka gudbayaan ama ay wax ka samaysanaan maxaa yeelay 15 baabuurna oo überholen ku samaysid aad ay u adag tahay maxaa yeelay baabuur ayaa horta ka imaan kara kuwan 15 kan xabo qaar inay ka ogolaan waayaan laga yaabaa inaad gudaha soo gashid marka waxa kaliya ku furan waxay tahay inaad gadaashooda joogtid oo aad sugtid ilaa ay aad boos aad ku socoto aad ka helaysid marka tan bis ayaa sax wuxuu ku leeyahay wie schnell darf ein Kraftfahrzeug mit Schneeketten höchstens fahren wuxuu ku leeyahay baabuur oo wato lugaha Schneeketten waxa la markii meelaha qaar dadka barafka ku badan baa yaqaana waxa la lugaha oo markii meel baraf amraysid lugta ayaa waxa lagu xirayaa silsilado si ay baraf uga baxaan markaas baabuurkaas oo silsilada ku xiran lugihiisa meeqa kilomitir uu ku socon karo ku leeyahay waxa uu ku socon karo waxay tahay ugu badnaan 50 kilomitir per hour su-aasha 66 wuxuu ku leeyahay sifaan mit 80 km/h hinter einem Auto her waxaad adoo 50 xawaaraha konton ku socda ayaa waxaad daba soctaa uu ku leeyahay gaari welchen Sicherheitsabstand müssen Sie mindestens einhalten abstandiga aad rabtid inaa spaceka ay tahay inaa gaarigaas ka horeeya aad celisid wuxuu ku leeyahay meeqa waay uu ku leeyahay qiyaas ahaan wuxuu ku leeyahay ein Abstand von 15 Meter 15 mitir in aan u dhexeeyo wuxuu ku leeyahay 2 Sekunden Abstand 2 second oo space ah inuu u dhexeeyo iyo wuxuu ku leeyahay 1 Sekunden Abstand 1 second oo space ah inuu noo dhexeeyo waayo ku leeyahay marka teeba sax hadiiba oo marba gaari ka horeeyo 6 mitir ku socotid waxa ay qasab tahay in 2 Sekunden Abstand oo idin dhexeeyo 2 Sekunden Abstand maxay tahay 2 ilbiriqsi oo Abstand ah 2 Abstand break daa qabat 2 ilbiriqsi amal meel adiga ku soconayso kala marka meel 2 ilbiriqsi oo Abstand oo space ah in oo idin dhexeyso way marka gaariga adiga ka horeeyo su-aasha 67 wuxuu ku leeyahay sifaan im Stadtverkehr auf trockene Fahrbahn in einer Köln wuxuu ku leeyahay stadka ayaa waxa daba socota uu meel qalalan wada qalalan ayaa waxa daba socota ku leeyahay Köln ku idin sheegay baabuur badan oo safana laha die sich mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h bewegen kuwaasoo 50 mitir
xawaarahooda ku socda 50 kilometer ku socda. Welche Sicherheitsabstand zum vorausfahrende Fahrzeug müssen Sie mindestens einhalten? Wuxuu ku leeyahay Sicherheitsabstandka Sicherheitsabstand spaceka oo safekaaga ah oo baabuurta ka hore u qabanaysid ugu yaraan meeqay qanaysaa uu ku leeyahay. Wuxuu ku leeyahay 10 Meter entspricht etwa 2 BKW länger. wuxuu ku leeyahay 10 mitir camal ayaan break ku qabanaya kaasoo qiyaas ahaan ay tahay laba baabuur oo baabuurta raaxada ah. 15 mitir ayaa qabanaya uu ku leeyahay oo noo dhexeynaysa ku leeyahay oo qiyaas ahaan ay noqonayso 3 baabuur dhererkooda camal ah iyo 5 mitir oo entsprechend etwa hal BKW ah hal baabuur camal inta noo dhexeyn karta camal ayaan u dhexeysanaya uu ku leeyahay. marka aydan teeba sax ah marka waxaa sax ah haddii oo meel qalalan aad ku socotid oo baabuur badan saf ah ee wadada ay marayaan xawaaraha lagu socdana konton oo yahay oo si shahayd abshkanka ugu yaraan aa celinayso waxay tahay meel 15 mitir ah oo qiyaas ahaan ay noqon karto meel 3 baabuur ay gali karaan. marka tambis ayaa idan sax ah. wuxuu ku leeyahay su-aasha 68 oo 4 dhibcood. welche Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug soll außerhalb geschlossener Ortschaft in der Regel mindestens angehalten werden. wuxuu ku leeyahay meel marka ku socotid meel magaalada ka baxsan oo baldooyinka magaalada ka baxsan sida Landstraße oo kale todo kale ama meelaha caadiga oo boqolboqolka lagu talagalay baabuurta ka horeysa ugu yaraan abstandiga qabanaysa meeqa waa uu ku leeyahay spaceka dhexeynaya meeqa uu ku leeyahay. wuxuu ku leeyahay 1/5 der Tacho Anzeige im Meter. wuxuu ku leeyahay hal meelood 5 meel markii oo ay noo soo baxdo Tacho Anzeige ah iyo half oo Tacho Anzeige markii wax mitirka iga tusto inta xaw ku socdo ba half ka dhigaya uu ku leeyahay. marka ayadana teeba sax ah marka waxa sax ah wixii marka mitirka ku socotid ba half ba ka dhigaysa si abstanda usna da ku socotid 25 ba ka dhigaysa 25 ku socotidna waxa ka dhigaysa 12 bar. marka adiga markaas mitiraadka ku socotid ayaa mar walba half u qaybinaysa wixii Tacho Anzeige wax kale maahan waa waxa ay baabuurka ku socotid ay ku soo warmaya allah wax kale maahan. 69 wuxuu ku leeyahay Sie fahren mit ihrem BKW und Wohnanhänger zulässige mehr als 7 Meter außerorts auf einer Straße mit nur einem Fahrstreifen für jede Richtung. Worauf müssen Sie beachten? wuxuu ku leeyahay waxa BKW-gaaga oo kugu rakiban yahay wuxuu ku leeyahay Wohnanhänger waxa la baabuurta oo guryaha laga sameeyo kale ayaa kugu dhagan oo dhererkiisuna yahay 7 mitir isku yihiin. waxa außerorts auf einer Straße waxa ku jirta meel ka baxsan magaalada wadooyin ka baxsan magaalada oo kaliya ah hal wado labis hal wado oo go ah iyo hal wado baabuurta ka soo horeysa ah bis ay leeyihiin oo ku leeyahay. marka maxay tahay waxyaabaha inaad ka taxadirtay u baahan tahay marka haddii gaarigaaga wadatid oo gaariga oo isjiid oo guri aad jiidanaysid oo ku leeyahay 7 mitir ay tahay oo laami ka baxsan magaalada amaraysid oo hal wado bis ay tahay oo baabuurta kale aad ku dhaafi karinin maxay tahay ku leeyahay in aad ka taxadirtid. qaybtood wuxuu ku leeyahay der Abstand zum Vorausfahrenden muss in der Regel so groß sein, dass ein Überholen einscheren kann. Spaceka gaariga ka horeeya ee adiga idin dhexeeyo waa inuu noqdaa uu ku leeyahay meel ugu yaraan hal baabuur oo soo gali karo. wuxuu ku leeyahay tan ku xigta der Abstand zum Vorausfahrenden darf nicht größer als ihre so lang sein, um den Verkehrsraum auszunutzen. wuxuu ku leeyahay saaid inuu u weynaado ma ahan buu ku leeyahay ilaa gaari ka wax awaltid inuu ka weynaado ma ahan buu ku leeyahay si Verkehrsraum ausnutzen sidana u isticmaalaan dadka baabuurta kale todo kale. iyo ta u dambaysa aydan ah die Geschwindigkeit von 60 km/h dürfen Sie nicht überschreiten. in 60 kilometer speedkiisa ah in aadan ka badanin laguma talagelin oo kaliya. marka teeba sax ah jawaabta marka waxay tahay der Abstand zum Vorausfahrenden muss in der Regel so groß sein waa inuu saa u weynaada uu ku leeyahay dass ein Überholende einscheren kann taasoo gaariga ku dhaafayo gaariga Überholen kugu sameeyo oo gali kara yacni waa inuu spaceka idin dhexeeya gaariga idin ka horeeya oo noqda meel oo gaariga Überholen kugu sameeyo oo gali kara. marka tan bis ayaa sax ah kuwan kale tood waa wada false. Zuerst war 3 dhibcood wuxuu ku leeyahay wann muss ein BKW mit Anhänger außerorts auf Straßen mit nur einem Fahrstreifen vor jeder Richtung vom Vorausfahrenden einen so großen Abstand halten, dass ein Überholer einscheren kann.
wuxuu ku leeyahay goormee ayay tahay uu ku leeyahay gaarigaaga BKV-ga iyo anhinga aa wadato gaari kale oo adiga aad jiidanayso uu ku leeyahay oo aad ku socotaan meel ka baxsan magaalada oo ay tahay meel walba hal wado oo lagu soconayo gaari ka horeeya xawaaraha spaceka aad siinaysid muxuu yahay uu ku leeyahay taasoo baabuurta ka dambeyso ay u behelin markay kugu sameeyaan ay gali karaan yacni micnaha meesha ka soo horeyso ay gali karaan marka jawaabtu maxay tahay uu ku leeyahay marka jawaabtu waxay tahay marka by einer Zuglänge über 7 Meter waa inay meel ka taadii adiga iyo anhingaaga isku yahay waa inay caadi ahaan 7 mitir noqotaan waa in isla markaasna meesha ay 7 mitir ay noqotaa buu ku leeyahay 7 mitir markay noqoto ayaa lagu ogol yahay uu ku leeyahay ku sameeyay marka 7 ayaa galaysa meeshan Zuerst koowaad wuxuu ku leeyahay was müssen Sie beim Fahren mit Winterreifen besonderes beachten wuxuu ku leeyahay maxay tahay waxyaabaha ay tahay inaad ka taxadirtid markii aad wadid uu ku leeyahay lugaha winterka marka soo maxay tahay waxyaabaha inaad ka taxadirtid ich darf höchstens so schnell fahren wuxuu ku leeyahay ich darf höchstens so schnell fahren wie bei der Nutzung von Schneeketten sida anoo isticmaalayo lugaha oo katiinadaha kala camal ayaan u socon karaa uu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay nicht schneller als 80 km/h fahren wuxuu ku leeyahay 80 xawaare ah ka badan lagu matalan ku leeyahay die zulässige Höchstgeschwindigkeit für diese Reifen nicht überschreiten wuxuu ku leeyahay inta loogu talagalay ee xawaare ah oo speedkooda ah ma dhaafayso ku leeyahay marka taa sax kaliya waxa sax ich darf die zulässige Höchstgeschwindigkeit für diese Reifen nicht überschreiten inta loogu talagalay xawaaraha ee gaariga lagu taada ah in aadan dhaafin lugaha qaar way ku qoran yihiin inta xawaaraha loogu talagalay xawaarahaas meesha ku qoran aadan dhaafin ayaa lagu talagalay yani tamis ayaa sax wuxuu ku leeyahay ihre BKW ist mit Winterreifen ausgerüstet waxa lagu xiro ku leeyahay baabuurkaaga luga winter ah welche Bedeutung hat diese Geschwindigkeit Aufkleber max 190 km/h am Armaturenbrett wuxuu ku leeyahay baabuur lugta maxay macnaheedu gooni ay leedahay uu ku leeyahay marka lagu dhajiyo max 190 km/h maxay u macnaheedu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay die Geschwindigkeit von max 190 km/h xawaaraha ah ugu badnaan 190 km darf nicht überschritten werden lama sii dhaafi karo ku leeyahay gilt nur bei winterlichen Straßenverhältnis kaliya waxay qosaysaa uu ku leeyahay laamiyada ama wadooyinka ay markaa winterka ka jiro gilt nicht bei trockenen Straßenverhältnis ma jiro ku leeyahay wadooyinka qalalan kama shaqeynayso ku leeyahay marka taa waa sax marka jawaabtu waxay saxay 190 kilomitir kan ama hadaa meel qalan ku socdo meel qoyin ku socotid in aadan dhaafin waxa ugu dadka maxaa yeelay meesha maximal 190 ku qoran maxalla ugu dambeyn 190 ayaa ku kaxin kartaa ku leeyahay ka badan kuma kaxin kartaa ama qabow wajiro baraf wajiro qalal ha ahaado inta ayaa ku kaxin kartaa mar walba Zuerst 73 wuxuu ku leeyahay was ist nach dem Anbau von Winterreifen an ihrem BKW zu beachten markii gaarigaaga lagu xiro lugaha winterka ah maxay tahay waxyaabaha inaad tahay ka taxdirto ku leeyahay wuxuu ku leeyahay der Luftdruck sollte 0,5 bar niedriger sein als die hergestellten Vorgaben für Sommerreifen waa in ahaataa ku leeyahay eber dhibic 5 oo inay ka yaraataa uu ku leeyahay sida caadi ahaan ee loo soo saaro lugaha samarka ah der Reifendruck ist entsprechend der Herstellenvorgabe zu überprüfen wuxuu ku leeyahay waa in sida shirkadda u soo saartay aarida lagu shubayo waa nafta lagu shubayo waa in sida aarida shirkadda u soo saartay u qortay waa in loo raaca uu ku leeyahay ama lagu jeegareeyaa iyo ta u dambeyso aydan ah die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Reifen ist zu berücksichtigen waxaa lagu talagalay ku leeyahay inta loogu talagalay geschwindigkeit xawaare loogu talagalay oo lugaha ah in aadan dhaafin yani macnaha taa sax Zuerst 73 wuxuu ku leeyahay was ist nach dem Anbau von Winterreifen an ihrem BKW zu beachten wuxuu ku leeyahay markii baabuurkaaga lagu xiro Winterreifen lugaha winterka ah maxay tahay waxyaabaha aad ka taxdirtid wuxuu ku leeyahay der Reifendruck ist entsprechend der Herstellervorgaben zu überprüfen wuxuu ku leeyahay aarida loogu talagalay lugta waa in ay sida shirkadda loogu saaray loogu raaca uu ku leeyahay die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Reifen ist zu berücksichtigen inta loogu talagalay aariyada waa in lagu raaca laga taxdiraa ku leeyahay inta u dambeyso ah der Luftdruck sollte 0,5 bar niedriger sein als die Herstellvorgaben für Sommerreifen waa inay hal eber dhibic 5 ay ka yaraataa buu ku leeyahay sida loogu talagalay baabuurta lugaha
in loogu talagala samarka waa inay halfkeeda taa uu leeyahay marka teeba sax marka waxa ayadan sax ah die Reifen Fülltrug ist entsprechend den Herstellvorgaben zu überprüfen waa in sida shirkadda u soortay loogu sameeyo uu leeyahay iyo tan ku xigta ayadan sax ah waxay tahay die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Reifen ist zu berücksichtigen inta loogu talagalay arayda lagu shubo in aad ayadana aad ku shubtid yani oo aadan ka badan ku shubin Su'aasha 74 wuxuu ku leeyahay wo müssen Sie besonderes mit starker Fahrbahnverschmutzung und Rutschgefahr rechnen meelahe ayaa inta badan ka filanaysa ku leeyahay in Fahrbahnverschmutzung laamiyo wasakh ah ay ka jiraan iyo Rutschgefahr iyo meel lagu taraaraxayo ay ka jiri karaan ku leeyahay intee dhigi kartaa meelahaas ay ka dhacayaan wuxuu ku leeyahay in städtischen Kreuzung wuxuu ku leeyahay magaalooyinka dhexdooda kreuska meelaha ah an Baustellen meelaha dhismaha ka socda an Einmündung von Feldwagen ja meelaha durduurka ah oo waa kale meelaha durduurka kale markaad tagtid meelo isgoys ah jiraan oo inta badan aan laami ahaan u dhisneen oo dhagax ama caro ama dhiiq wax iska taala jirto taas camal ayaa la marka meelahaas kale ku leexanaysid ayaa kugu dhici karta ku leeyahay marka aydan teeba sax ah ya ayadana waxa sax ah in marka meelaha dhismaha ka socdo iyo sidoo kale tad meelaha durduurka ah oo inta badan laamiyada qaar xataa laamiy ma lahan dhagaxyo bis ayaa yaalo ama waxa yaalo dhiiqo iyo probadooda oo kale todo kale dhiiqa caay ay noqotaa waa meelaha durduurka beerleyda inta badan ay isticmaalaan marka labadan bis ayaa ka filan kartaa uu ku leeyahay Fahrbahnverschmutzung laamiyo wasakh ah iyo sidoo kale tad meelo lagu kufo ama lagu gaariga ku taraaraxo labadaas meel bis ayaa keli kartaa buu ku leeyahay Su'aasha 13 wuxuu ku leeyahay warum müssen Sie bei Nässe einen erheblichen großen Sicherheitsabstand einhalten als bei trockener Fahrbahn wuxuu ku leeyahay sababta aad meelaha qoyaanka ah aad space badan u celinayso maxay tahay ku leeyahay markii loo eego meelaha qaleelka wuxuu ku leeyahay weil durch Spritzwasser die Sicht beeinträchtigt werden kann maxaa yeelay ku leeyahay biyaha meeshaas markaas yaalo in aragaaga ay saameeyaan oo kale laga yaabo ku leeyahay tan kale wuxuu ku leeyahay weil sich der Kontakt zwischen den Reifen und Fahrbahn verschlechtert xiriirka u dhaxeeya lugaha iyo laamiga in oo si xumaado iyo ta u dambayso ah weil der Bremsweg länger wird iyo brake aqbalist oo si dheeraanaya yani hadda brake qabtid hore kama qabanaya gaariga xogaha iyo hor u sii soconaya marka teeba sax ah ayadana dhammaantood waa wada sax weil durch Spritzwasser der Sicht beeinträchtigt werden kann biyahaas meesha yaala aragooda in aragaaga oo dhibaato u keenaya iyo sidoo kale xiriirka u dhaxeeya lugaha iyo laamiga in oo sii xumaanayo iyo breegaaga markaa breeg qabto breegana sii dheeraanaya marka dhammaantood waa wada sax wuxuu ku leeyahay wo müssen Sie besonderes bei Fahrbahnverreisung rechnen intee ayaad inta badan kaga fikiraysaa buu ku leeyahay inay jiraan meelo laamiga jajabsan yahay ama laamiga jeexan yahay wuxuu ku leeyahay auf Brücken wuxuu ku leeyahay bundooyinka korkooda wuxuu ku leeyahay auf stark befahrenen Streck wado oo saaid loo isticmaalayo ku leeyahay oo muddo badan la marayo ku leeyahay iyo sidoo kale tood auf Strecken wadooyin die durch Wald führen kuwaasoo dhanka duurka kula aadayo ku leeyahay ayaa ka filan kartaa ku leeyahay marka teeba sax ah marka wuxuu ku leeyahay waxa sax ah auf Brücken bundooyinka kale maxaa yeelay bundooyinka markii qeybo waxa jirta oo la isku dhajiyo jirta labadaas qeybood markii la isku dhajiyo meel space ayaa ka yeelanaysa ku leeyahay meesha soo kale waa ka arki kartaa ku leeyahay iyo sidoo kale tood auf Strecken die durch Wald führen iyo wadooyin oo ku hogaaminayo dhanka duurka kale todo kala hoodka kale ku hogaaminayo meel laamiga jaxan baa aydan ka arkaysaa ku leeyahay marka labadan bis ayaa aydan sax ah iyo su'aasha 78 aydan worauf müssen Sie sich hier einstellen sawirkan kale marka aragtid maxay waxyaabo aad ka taxdiraysid wuxuu ku leeyahay auf eine Verengfahrbahn waxaan ka taxdiray ku leeyahay wado hal marka ujeedaa wado oo cariir sii noqonaysa sii yaranaysa auf ein von rechts kommend Fahrzeug Bauer inuu midigtan ka imaado meelahan midig soo bax baabuur iyo auf einen verlängerten Bremsweg iyo breegaaga oo xogaa yar dheeraad maadaama meesha ay qoyan tahay ama ay yeelaan maxaa la caleemahan oo kale ay yeelaan in breegaaga oo sii dheeraan kara marka aydan teeba sax ah marka aydan dhammaantood oo sax auf eine Verengfahrbahn oo ujeedin laamigan uu sii yaraanaya iyo gaari inuu meeshan midigta ka soo baxo waa ujeedin meesha rechts for links way iyo ta u dambayso aydan breegaaga inuu dheeraado maadaama roob da'aya isla markaana laamiga qashin badan ay yeelaan su'aasha u dambaysa 39 wuxuu ku leeyahay warum müssen Sie
auf diese Straßen besonderes aufmerksam fahren wadadan oo kale markaa maraysid maxay tahay kuleeyahay sababta aad si taxadir la u martay tahay weil eine Straßenbahn entgegenkommen konnte gaari wuxuu ku leeyahay Straßenbahn wadooyinka trainka mar ayaa laga yaabaa inay hor imaado wuxuu ku leeyahay weil die Fahrbahnoberfläche uneben und unterschiedlich griffig ist wuxuu ku leeyahay maadaama laamiga oosan sinayn uu ku leeyahay yani micnaha oo ay kala sareeyo iyo weil das Fahren auf ein Schienen gefährlich ist iyo sidoo kale dad meeshan shiinka waxaa la wadooyinka oo trainka lahaa shiinka birahan trainka lahaa oo markaa maraysid in ay halis tahay yani micnaha marka ayadan teeba sax ayadan sidoo kale dhammaantood waa wada sax maxaa yeelay in aad train waxaa laga yaabaa inuu ka hor imaado trainka sidoo kaleetood waxaa laga yaabaa in waxay tahayba in wadada aysan sinayn oo kala sareyso oo birta hoos jirto dhagax hoos oo soo jiro birta nafkeeda ee laba bir kala leedahay iyo sidoo kaleetood caadi ahaanba wadooyinka trainka in ay halis tahayba markaad gaariga ku dhex wadaysid ama lugtaada inay saameyso gaariga lugtiisa inay dhibaato u geysto iyo wax kaleetood oo lamid ah marka intaas ayaan kusoo gabagabeynaa sida hore idinkugu sheegay videoda soo gagaabinayna casharka xoogaa maanta waa rabutiyay si idinka xamaasad idinkugu yeelato videoga daawashadiisana aad uga heshaan sadarteed maanta intaas ayaan kusoo koobaynaa qayb kaleeto saddexda noo hartay oo aan ku dhamaystirayno casharka 8aad haddii oo ilaah yiraahdo kadibna waxaan tusoo bilaabeynaa casharka 9aad inta kulankan ku xiis badan kulmi doono anigoo Khaliij ah fi amaan illah